السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيبو وأبوان حرقو يوتيوب كداوريسان وأبوان حرقو official. فضلا هداد يقول عصوب تهي سبسكرايب سا. هداد هراي يرتشوفتين لايك يا شير سا. اوكي. waxaan maanta wareysan doonaa mid ka mid ah raggii kufsaday gabadhii Caashiya oo lagu kufsaday Puntland. Su'aalaha aan weydiin doono ku soo dhawaada. waxaan ku weydiinayaa 32 su'aalood. sida aan ku weydiiyo ayaad iiga jawaabaysaa. اوكي. su'aasha koowaad. dambiga kufsiga ah ma gashay? maya ama ha? Yes. اوكي. yaa kugula taliyay inaad disho Caashiya? kufsigaasi waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed. goormuu dhacay kufsiga Caashiya? subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay. iligee? laba saac. Caasho ma soo afduubteen? Caasho isaga afduubay, isaga gurigiisa geeyay, anigu waa uu soo wacay kaliya. guriga aad ku kufsateen yaa leh? Cabdishakuur Maxamed. yaa deganaa gurigaas? waxaa degan isaga iyo hooyadiis. اوكي. yaa kuu yeeray mise waa la ogay? aniga isaga ii yeeray yiri waan ku baahanahay darisna waa haysi soo jeedo. mobile miyuu kaa soo wacay mise wuu kuu yimid? waan is aragnay anigu gurigeyga hortaagan. waan ku rabaa buu yiri ma anigu gurigeyga hortaagan. waan la bistay waan baxay gurigiisa ugu tagay oo qol cusub banaan oo aniga iga soo jeeda. waxaan u tagay soo qolka ku haysta Aisha waana xaqiiq waxaan ka hadlay. kadib maxaa dhacay? dabadeed waxaan u tagay soo qolkiisa yar banaanka ku haysta Aisha una xirxiran. muddo dood dheer kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyay wax fudud oo dhamaanaya inay yihiin. haween shaydaan baan ii kasbay. Caasho xagee uga tagtay ayadoo nool? anigu kufsigan sameeyay goobtii faldambiyeedkana waan ka tegay Aisha oo nool. waxyaabaha igu qanciyay waxaa ka mid ah in uu sii dayn doono markay hawsha dhamaato. اوكي. kadib maxaa dhacay? dabadeed go'aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yiri inaan dilaa Aisha anoo kaliya. Ovuvuin anyetwen ugbemugwem osas. meeqa nin ayaad ku kufsateen? keligaa, 2 nin, 3 nin, 4 nin, 5 nin, 6 nin, 7 nin, meeqa ayaad Caaisha ku kufsateen? aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa waana hadda goobta fadhin. kan maqan magaciisa ii sheeg. aadan maxamuud cabdille. xaguu deganaa? galkacyo degan. adiga iyo aadan kufsiga ma ka qayb qaadan? aniga iyo aadan kufsigan ka qayb qaadanay. adiga iyo aadan ma isku xilli ayaad baxdeen? isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan. isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay. Cabdishakuur wuxuu nagu la taliyay waxaana inay kufsi kaliya noqon doonaan. waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii deyn doono. sidaasaan go'aan ku gaarnay waan ka tagnay. anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay. meeqa mar ayaad adigu kufsatay? Ovuvuin anyetwen ugbemugwem osas. Jesus. How was this better for you? Ovuvuin anyetwen ugbemugwem osas.